munaasabad lagu daafurayay wakaaladda horumarinta dhismaha Soomaaliyeed ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka, wasiirka warfaafinta Soomaaliya, wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha, wasiirka cadaaladda, xeeralyaha guud ee qaranka, xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, taliyaal ciidan, gudoomiyaasha maxkamadda ciidamada qalabka sida, xubno ka socday maamulka gobolka Banaadir iyo ganacsato. inta ay munaasabadu socotay ayaa waxaa lagu soo bandhigay muhiimadda ay u leedahay dalka wakaaladda horumarinta qaranka dhismaha Soomaaliyeed oo ka mid ahayd hay-adihii ku burburay dagaaladii sokeeyay. maareeyaha wakaaladda horumarinta dhismaha Soomaaliyeed Sarreey Guud Bashiir Maxamed Jaamac ayaa sheegay in uu hiigsanayo qorshayaal lagu dhisay xarumaha ciidanka iyo wadooyinka magaalada Muqdisho. jeedooyinka ama waxa aan ku talaabsan doono insha Allah waa waxa soo bandhignay oo ah meelo badan oo midba kale ka xanuun badan tahay midba kale ka burbur badan tahay laakiin waxaan ku soo koobnay 8 qodob oo hadda aan soo sheegnay oo ah muxuu ahaa kaabayaashii dhaqaalaha, muxuu ahaa hay'adihii cadaaladda, hay'adihii amniga iyo difaaca dalka, hay'adihii cadaaladda iyo garsoorka, caafimaadkii, waxbarashadii, muxuu ahaa iyo dhammaan hay'adkii noocaas oo bilicdii iyo taariikhda dalka sidii loo soo celin lahaa. wasiirka warfaafinta Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in dawladda dhismooyin ay ka wado dalka taas oo qayb ka ah aragtida madaxda dalka in dib loo dhiso dalkeenii aynu gacmahayna ku duminay. bal horta wejiga magaalooyinka qurxino, wejiga laamiyada qurxino, wejiga dugsiyada qurxino, markaa kadib haddana kuwa cusub dhisno horumarina. marka dawladdu waad ogtihiin oo horeba way u bilowday meelo badan oo dalka ka mid ah oo waaweyn ayaa maanta dhisme dadka Soomaaliyeed isku tashaday ay ka socdaan oo uu ka mid yahay tiyaatarka qaranka iyo madxafka iyo maktabadda iyo stadium Muqdisho iyo meelo badan oo saas. wasiirka cadaaladda Soomaaliya Mudane Xasan Xuseen Xaaji ayaa sheegay in wakaaladda faa'iido ay u tahay xarumaha hay'adaha dawladda. wakaaladan waxay faa'iido u tahay shaqadeeda waxay noqonaysaa inay hay'ooyinka dawladda dhan ay ka shaqayso sidii hadda uu sheegay bahda garsoorka iyo bahda kale oo amniga iyo bahda kale oo tacliintu noogu sheegay. waa wasaarooyinkii kulliya loo baahan yahay in dib loo dhiso. qaar hadda waa dudumi rabaan in dib loo qiimeeyo oo loo dhiso loo baahan yahay. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Mudane Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muude ayaa daafuray wakaaladda horumarinta dhismaha Soomaaliyeed isagoo sheegay in loo baahan yahay in dalka dhismooyin laga sameeyo. Bashiir Maxamed Jaamac oo taariikhdu ay tahay 26 waxaan daafuray wakaaladii horumarinta dhismaha Soomaaliyeed. waa daafuran tahay saa u daafurnay adigana waxaan ka rajaynaynaa wax qabad wanaagsan. waan mahadsantiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa dhawaan xilka maareeyaha wakaaladda horumarinta dhismaha Soomaaliyeed u magacaabay Sarreey Guud Bashiir Maxamed Jaamac waxaana la rajaynayaa in howlihii wakaaladda ay dhab u bilowdaan dhawaan. Axmed Cumar, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.